xarunta taskiyada iyo daraasaadka culuumta islaamka almaxmuudiya ayaa ka tacsiyeysay geeridaas ku timid allaha ka raali noqday xaaji daa'uud cilmi aas-aasaha markaska almaxmuudiya sayidina sheekh maxamuud nuur sheekh cabdiraxmaan sayid yuusuf ayaa guud ahaan islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeeyey geeridaas naxdinta le ku timid sheekhaynii weynaa ee sheekh xaaji daa'uud cilmi caarif waxa uu sayidku si gaara uga tacsiyeeyey ehladii qoyskii iyo qaraabadii iyo jamaacadii qaaska ahayd ee uu ka baxay allah ka raali noqdee sheekh xaaji daa'uud sayidka oo si fiican ay isku yaqaaneen xaajiga ayaa si kooban uga hadlay taariikh nololeedkii sheekh xaaji daa'uud cilmi caarif inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay subxaanahu watacaala sabar jamiila naga siiyo annaga iyo ummadda nebigana maxamed oo dhan calayhi salaatu wasalaam iyo ahladii iyo awlaaddii iyo xaasaskii u ka geeriyooday sheekhayna weynaa ee saalixa ahaa weli ilaahay ahaa almuxsin astakhiyu aljawaad ahaa sheekhana sheekh xaaji daa'uud cilmi oo ahaa ilaahay addoommadiisa suusuuban ee saalixiinta ka mid ahaa jamaacadii sheekheenna sheekh nuur xuseen imaam alawliyaa ka tirsanaa aad iyo aad ayaan uga murugoonnay sheekha geeridiisa ma dhinta ilaah weeye qof walba oo la abuuray oo bashar ah geerida wuu la kulmayaa haddii adduunka baaqi lagu ahaanayna nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa joogi lahaa baaqi ku ahaan lahaa sidaasii ambiyadii iyo rusushii iyo saalixiintii in badan kamida uga tageen way ka doorteen ilaahay liqihiisa iyo dhowaanshaha ilaahay subxana watacaala ilaahay dariskiisa sheekhana xaaji daa'uud cilmi ilaahay weligiisa ahaa isagoo dhallinyaro ah shaqadii adduunyada ka tegey bardukariim u haajiray ee sheekhiisa sheekh cabdi sheekh nuur xuseen la kulmay dariiqadii ijaazada ka qaatay kadibna loo idmay khidmadii masaakiinta iyo fuqarada iyo diintana u khidmeeyo kuna soo cimriyey naftiisa iyo maalkiisa iyo wakhtigiisa ku bixiyey ilaahay diinkiisa iyo ahlullaahiga dadka ahludiinka ah iyo xerta cilmiga baranaysa iyo xerta qur'aanka baranaysa talaamiidda ah in markaa uu u khidmeeyo oo u sacyo sidii markaas diintii ay ku baran lahaayeen gogashooda iyo jiifkooda iyo cuntadooda iyo labiskooda iyo kutubtooda uu istaago diintii ilaahay nashrinteedii kaalin weyn uu ka qaato khidmadii saadaadkii saalixiinta owli ilaahay ahaa ee markaas zamankiisa joogtay waddanka soomaaliya ku sugnay intooda badan inuu ka qayb qaato u khidmeeyo ilaa da'daas hadda ku soo gaaray oo ku soo weynaaday waxa weeye fadli weyn oo ilaahay uu siiyo subxaana watacaala weeye caawa ayuu nicmadii iyo khayrkaas iyo ijaabadii ayuu marka hayaa insha allahu tacaala sheekheenna xaaji daa'uud markii ugu horraysay oo aan si fiican u sii bartay magaciisa aan maqal jira mahane waxa way markii sayidina sheekheenna abusheekh maxamed raamo lasurullaahi ilaahay weligiisa ahaa alcaarif billaahi wuu iiga sheekeeyey yidhi xaaji daa'uud anigoon aqoon u lahayn oo reer sheekh nuur xuseen oo dariiqo weyna ballaaran ah ka wada tirsan baldukariim la aado ikhwaanka ay farabadayn las aqoonin ayaa abusheekh maxamed raamo lasurullaahi wuxuu yidhi habeen ayaa ru'yo manaama lagu tusay beer weyn oo jannada ku taallo oo aad u qurux badan oo aan la fiirin karin quruxdeeda jamaalkeedii isay u baxday anigoo la yaaban baa la yidhi beerta ma taqaanaa cidda iska leh mayaan dhahay beertan xaaji daa'uud cilmi ayaa iska leh xaaji daa'uud baa iska leh markaasaan idhi muxuu ku gaaray oo aan weydiiyey malaa'igtii ila hadlaysay markaas waxaa la yidhi wuri wuxuu ku gaaray sadaqo iyo deeqsinimo ku gaaray kolkaas ayaan dadka waraystay xaaji daa'uudkaas markaasaa la ii sheegay xaaji daa'uud cilmi inuu yaaqshi degan yahay xaafadda lafaweyn uu degan yahay kolkaasaan u qasday oo aan marka u tegey oon soo booqday soo ziyaartay waana u sheegay riyadii bashaarada aan arkay maalintii masaakiinta meesha laga quudinayo iyo xeraha cilmiga ah markii aad baan ula yaabay farabadnaantooda kadib markaa xaajiga saasaan u garanayay nin ahlullaahi ah ahlu fadli ah culamo ah ahludiin ah ahlu khayr ah sidaasaan ku bartay sayidina abusheekh maxamed raamo lasurullaahi markii muddo dambe la joogay oo 15 sano kadib saas abusheekh raamo iga sheegay kadib ayuu wuxuu yidhi maxamuudow xalay waxaan arkay oo la i tusay xaaji daa'uud oo gaaray maqaamul caarifiin gaaray oo maqaamul murshid gaaray oo marka in talaamiidda ay ka sharaabaan oo ijaazo uu bixiyo maqaamkeeda gaaray xag ilaahay ka gaaray oo ilaahay agtiisa laga siiyey ayaan arkay sidaasuu abusheekh maxamed raamo le sheekheena radiallahu canhu ardaahu ii sheegay marka usbuuc ama 10 ber kadib ayaan waxaan maqalnay in sheekhana imaamul awliyaa sheekhana sheekh cabdiraxiim ibnu sheekhina suldaan rijaal sheekh cuthmaan ibnu sheekhina qutb alaqdaabi quthil anaami sheekhana sheekh xasan mucallim muumin basraawi radiallahu canhum ajmaciin inuu basra ka imaaday yaana loo sheegay sayidii sheekh cabdiraxiim baa basra ka yimid waxaa kulan weyn lagu qabaa mawlica lafaweyn ama hoteelka lafaweyn ayaa lasugu imaanaya sheekhana wuxuu yidhi insha allah
waxaan rabaa xaaji daa'uud inaan dariiqada u khaliifo u idmo inuu bixiyo oo sheekh cabdiraxiin sheekh cismaan sheekh xasan macalin sheekheena oo ah khaliifka sheekheena sheekh nuur xuseen waxa u sheekha sheekheena sheekh nuur xuseen waana oo sheekh xasan macalin basraawi farciisi hadana oo sheekh nuur baa lagu ogaa sheekhiisa oo khaliifay marka sidaas marka ayuu idan ku siiyey dariiqada inuu bixiyo ma sha Allah ta'ala markaasaan akhbaartii abu sheekh raamole sheekheena abu sheekh maxamed raamole sirrullahi uu ii sheegay radiyallahu anhu majma'in ayaan ku xasuustay alxamdu rabbil alamin sheekheena marka xaaji daa'uud cilmi oo ilaahay weligiisa ah saalix ilaahay ahaa ilaahay naxariisti janna iyo maqaami daraja Allah u ziyaadiyo inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajal musamma ijaabashada adduunka ka tagaana waa martiqaad iyo cursi iyo dabaaldeg ilaahay agtiisa laga soo dhaweynayo dadka saalixiinta ah dhimashada inay tahay daar ay ka guureen daar ka khayr badan ka fadl badan ay u guureen nusuusta quraanka iyo xadiiska nabiga ayaa noo cadiyay calayhi salaatu wasalaam adduunka way ka raaxaysteen way ka nasteen waa midda dadka ahlullaahiga ay ahlus sunna wal jamaa markii awliyaha ay xijaabteen ay markaa ziyaaradoodii iyo ka dhigaan waqtigii wardiga iyo ducada loo bixinayay ihtifaalkooda looga dhigaa maadaama ay tahay waqtigii ay la kulmeen allahi khaaliqa subhanahu wa ta'ala diyaafadiisa ay galeen nabiga محمد عليه الصلاة والسلام لكل من مركا عيدو دي وينه فرحدو أي تهاي مركي سيدنا بلال وحجابني زوجتي سي كرباتي مرقوتي وحزناه ألا مرقتي ذا يتري يوحي بل مجرته مرق مجرته وطرباه وفرحته ألا فرحته ذا يبوري غدا بريبا القل احبته احبابتي لكل ما يا محمدا وصحبه نبي الله محمد اصحابتي يا حزبيسي ايام بري لكل ما سيدنا بلال يري سدا marka kulligood farxadaas bay ku xijaabtaan oo marka u qarsoon xaaji daa'uud marka noocaas inuu yahay i'tiqaadsanahay ilaahi darajo iyo maqaam farxada u ziyaadiyo ahbaabti iyo muridiinti iyo talaamiidii iyo jamaacaadkii iyo awlaadii uu ka tagay waxa leenahay anaga dhan sabar jamiil Allah naga siiyo قداش إله نما فدنايو بارك الله فيكم جنازتي يا إله ذكري كدم بحلقات ذكر إله كدم بيسي إن شاء الله وحنكسر وتنيني حاج داود ولي الله ينكسر وتنيني إله صبر جميل هنقبض السيو أنك يا أولادي سيدك يا إخوانك يا حرتي ساها يا لمان إخوانك راشا نور حسين يا لمان أهل السنة والجماعة مالك سجوكتو يا مسلمين المسلمات كبا وحلا أنها إله شاقة صبر هنقسيو ورضي الله عنه سداس على أنها شاقة عزي مقام الله زياديو إله قداش نما فدنايو أولادي أهل كي يا أحبابتي وكتجنا إلهي سبحانه وتعالى توفيق يا استقامة يا اسكدمان الله سيو الدنيا آخرة الله جاجيو صبر جميل الله كورزاقه بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته